maalmihii dambe waxaa soo cusboonaaday in dadka Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada ay ka go'een luqadii oo isticmaalka luqadda uu noqday mid aad u yar taasoo sabab u tahay yani luqadii oo dadkii ay ka doorbidaan inay isticmaalaan luqado kale oo ajnabi ah sida Ingiriisiga ama af Carabiga waxaa arkaysaa magacyadii oo la bedelay waxaa arkaysaa qoraaladii oo la bedelay waxaa arkaysaa yani dadkii dhalinyarada ahaa oonan aqoonin luqadii asliga ahaa ee Soomaaliga ahayd taasna waxay dhibaato u keeni kartaa identity-ga ama yani jiritaanka qofka shakhsi ahaan because luqadda waxay ka turjuntaa yani qofka identity-giisa marka haddii isticmaalka luqadda af Soomaaliga uu yaraado ama social media uu ku yaraado ama hadalka caadiga iyo wada sheekaysiga uu ku yaraado waxa imaanayso in yani luqadda ay meesha ka baxdo oo ay lunto أولاً إن هرتا Soomaaligu oo sudaa ku yimaado waxa sababay kaliya ma burburin daaraha ee waxa burburay waxaan ku hadli jirnay iyo waxaan anagu dhaqan u lahayn intaasi markay burburtay waxa meeshii ka baxay Soomaaligi waxaana sababay in dalku oo burburay aawadeed qof kasta oo Soomaaliya uu ka baxa dalkii oo dal kala tago oo san danaynin ama muhiimada koowaad oo san siinin luqadii isaga u lahay asaliyan oo ku hadlo luqado qalaad taas ceebteeda ma lahan oo waxa ku qasabtay bulshada uu la noolay meeshaas in looga hadlayay laakiin muhiimad gaar ah inay ummadda Soomaaliyeed siiyaan ayaa loo arkaa inay bartaan afka Soomaaliga baraan caruurta iyo maxay ayto jiilalka iyaga ka dambeeyay si ay u noqoto dhaqan halhaysa oo saldhigta dibna u soo noolaada luqadda Soomaaliga waxaan isleeyahay waa lagu soo noolayn karaa in يعني سأقولنا هذا حلقان وحاجة هذه جرنا اللغة الصومالية أيوينك أما دتك وويناي وكلاته مرك حتى سأقولنا هنا فرصة تكون هلان عيال كيركا أما دنيرة إنه هلان أيوينك أول نوقف شيء كنجر شيء كوين سيدا شيء كحريروين كلاته كواس هذا أيضا نحب لقوا قد بيو لغتنا وإنه يكون فهمان المها إن إسكسية فرصة أيوينك كلاته إنه هلا سيدا كلاته حرمة إن بوجا قرن وصومالي وقرن وكلا وقف كسته ومركو تجاو كهلي كرا ومعناها يعني كودي رجلينيس إن Soomaaliga baratid in wax badan oo Soomaaliga ka qoran akhrisid in maamooyinka ayeeyooyinka kale talaga qoro waxa dhaxalahaan u leenahay Soomaaliga dhaxalka ku leh buugaag ahaan loo ka reebo bas leeyahay iyadana waxay ka qayb qaadan kartaa in Soomaaliga uu soo noqdo luqadda af Soomaaliga markaan anagu sheegayno waxa la yiraahdo hiddo iyo dhaqan bay Soomaalidu leedahay hiddo iyo dhaqan waxa la yiraahdaa waxa dalku leeyahay Soomaalidu afka markaynu anagu sheegayno waxaan iraahdaa afku waa hiddo afku dhaqan ma aha waa hiddo mar hadduu shaygu hiddo galana waa waxa dadka lagu aqoonsado maxaa yeelay hidduhu waa maguuraan dhaqanku si uu guurguuraa waxyaabaha ku soo kordha waxyaabo isbedel baa ku dhaca wuu socdaa dhaqanku noloshu la socdaa laakiin hidduhu waa wax nagi oo dadka ay leeyihiin oo lagu tilmaansado sidaa darteed sida uu yahay dhulka aynu deganahay geeska Afrika waxaynu leenahay Soomaalida lagu aqoonsado ayuu afkuna u yahay hiddo marka sidaa darteed afka hiddo weeye dadka Soomaaliyeed baa isku aqoonsada waana lagu aqoonsadaa annagaan iskale waa waxaan ka dhaxlay awooyaasheen ayaanu ka dhaxlay fac iyo fac baa isu gudbinay sidaa darteed ayaa Soomaalida waxaa la yiraahdaa tirada saxda ah hadda anigu halkan kaagama sheegi karo dadka cilmi tira koobka dadka yaqaan baa sheegi kara laakiin meelaha looga hadlo waxa kamid ah af Soomaaliga waxa la yiraahdaa waa afka xuduudaha ka gudba afafka adduunkana waxa ugu qaalisan ugu wanaagsan ugu saameyn badan afafka xuduudaha ka gudba maxaa yeelay waxa looga hadlaa afkeena Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa looga hadlaa Jamhuuriyadda Djibouti waxa looga hadlaa Soomaali galbeed oo Itoobiya waxa looga hadlaa NFD oo Kenya marka inta maadaama looga hadlo afku waa af xuduudo ka gudba waa af dad badan qowmiyado badan ay ku hadlaan qowmiyadahaas ayuu isku hayaa afka marka tira ahaan la yiraahdo aad bay u badan yihiin ilaa malaayiin 30 milyan meelaha aad 25 way gaarayaan qiyaastii sida umay u soo galaysaa waa qorshaha akademiyada qorshaha ugu jirtaa sidii af Soomaaliga lagu horumarin lahaa horta koow waxa kamid ah waxyaabaha akademiyada kaabayaasha waa in la soo nooleeyo ayaa uu ahaa af Soomaaliga xarumihii afka ka shaqeyn jiray in la soo horumariyo sida akademiyada maktabadii qaranka tiyaatarkii waxyaabaha afka ka shaqeyn jiray
in la soo nooleeyo horta waa koow macallimiinta afka dhiga af Soomaaliga in la tababaro waa labo waxyaabaha lagu horumarin karo waxaa ka mid ah manhaj af oo qurux badan in la sameeyo la qoro oo wasaaradda waxbarashada aan kala qayb qaadan waa saddex midda afraad waxaa weeyaan erey bixinta afka ku soo kordhay ka cabanayaan xafiisyada iyo maamulka dawladda in erey bixin sax loo helo ayadana waa saddex waa afar waxaa kaloo ka mid ah in la siiyo wacyigelin guud ama awareness waxa lagu yiraahdo afka qalaad dhalinyarada iyo jiilka soo koraya in afkooda ay adeegsadaan waxa kaloo ka mid ah in madaxda dawladda markay hadlayaan ay adeegsadaan afka iyadana in wacyigelin lagu siiyo oo la yiraahdo madaxdu ha adeegsadaan afka hadday baarlamaan yihiin hadday wasiirro yihiin iyo hadday dadka kale xafiisyada ka shaqeeya agaasimayaasha guud ay yihiin ayaguna in lagu wacyigeliyo inay afka adeegsadaan marka waxyaabahaas oo dhan marka la isku daro waxa weeyaan waxyaabaha akademiyadu ay rabto mustaqbalka inay afka ku horumariso